صحابي اللي أورنجري عبد الرحمن بن عوف باكياني علمي نبي محمد وكورين حديث أو دول هدي وضاعون كله إن لجلين دتك كجرنا أيسا كبيحين waxay ku tusaysaa xajir sixiga ah ama karantiinka macnaheedu waxa weeye karantiinku qofku saameyn ku yeelanaya deegaan buu saameyn ku yeelan karaa mujtamac buu saameyn ku yeelan karna wadan buu saameyn ku yeelan karaa loo baahan yahay qof walba inuu isaga ma garanaysaa naftiisa u ilaaliyo oo maxaan ku yiraahdaa xanuunada uu ka ilaaliyo sidee uu ilaalinaya nabi kaleey salaatu wasalaam wuxuu yiri fir min al majduum firaruka min al asad sida aad libaax uga baxsatay xanuunka judaamka la uga carar macna xanuunada fida weeyaan ilaahay naga badbaadiyo xanuunkaas marka qofku waxa la rabaa sidii uga carari karo waa maxay in hadii meel uu ka jirana uusan gelin oo loogu sheego haduu ku jirana uusan ka bixin fiiri bulshadana inuu ilaaliyo oo uusan ka dhex bixin isaga naftiisa inuu ilaaliyo marka uusan gelin laana waxa uu alwiqaayatu khayr min al-ilaaj in xanuunka laga hortago ayaa waxa ka fiican in marka la daweeyo waxa la takoorka ama maxaan ku yahay faquuqa in qof lagu faquuqo xanuun uu qabo ama kalarkiisa ama maxaan ku yiraahdaa ama shakligiisa diinta islaamka arintaasi waxa weeye ma qabto waxa weeye nabiga kaleey salaatu wasalaam wuxuu yiri la adwa wala dayra يعني ما jirto waxa way xanuun iska faafa oo qofka iskaga dhaca wuxuu xanuun ku yimaado waa qadar ilaahay weeyaan ilaahay ba subhanahu wa ta'ala ku ridi kara ilaahay baana ka badbaadin kara marka arinta inaynu aamino weeye